waxaan salaamayaa ugu horeyn wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya dhammaan agaasimayaasha guud ugu horeeya agaasimaha wasaaradda batroolka saaxiibka Maxamed Xaasho ku salaamaya iyo dhammaan marti sharafta kale iyo agaasimayaasha ka yimid wasaaradaha kala duwan ganacsatada qaybaheeda kala duwan bahda saxaafadda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya runtii barnaamijkan ahmiyadiisa iyo waxa uu yahay iyo waxa laga faa'iido doonay marxaladii uu soo maray waxaan kaga dheehanay filimka yaraa lagu soo bandhigay barnaamijkan sidoo kalena uu faahfaahin buuxda ay naga siiyeen agaasimaha guud wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya marka barnaamijkaasi warbixintiisii intaas ayaan kaga gudbay oo kaliya doorka ay dhiman oo ku aadan oo in aan idin si rasmi ah aan ugu dhawaaqo daafurkii iyo inuu noo daafuran yahay barnaamijkan oo hadda kadibna waxa weeye uu shaqayn doono runtii waxaan rabay oo kaliya inaan anoo meesha ka sii ambaqaada inaan hal kelmad aan ku darsado oo ku saabsan waxa weeye waa muhiimadda iyo iyadoo wasaaraddu waxa weeye hirgelinaysa siyaasadda guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ku saabsan horumarinta ganacsiga ee Soomaaliya runtii saad la socotaan dadka igu horeeyay ay sheegeen oo halkan ka qudbeeyay Soomaaliya waxa weeye waa bulsho ku horumartay dhanka ganacsiga runtii waddankeena markaad fiiriso ganacsigeenu maanta waxa uu ka gudbay dalka gudihiisa waxaan u gudubnay xuduudaha waa ka sii gudubnay waxaan u gudubnay qaaradaha ka fogfog waxa waa Afrika iyo dalka Soomaaliya waddankana waxa weeye maanta marka la eego burburkii dowladnimada Soomaaliyeed kadib iyo soo hanaqaadkii marka dowladnimada Soomaaliyeed waxa ugu weyn ee gacanta ka geystay waddanka halkaas soo gaarsiin waxa weeye waa ganacsatada Soomaalida iyo ganacsiga runtii marka wasaaraddu ayadoo ka jawaabaysa siyaasadaha guud ee xukuumadda u degan ee horumarinta ganacsiga waxay ku dadaalaysaa in ganacsiga Soomaaliyeed uu noqdo mid la jaan qaada ganacsiyada ee adduunka ka jira isla markaasna la yareeyo ganacsatada loo fududeeyo wax allaale wixii caqabada ah ee ku saabsan marka waxa weeye ganacsigooda runtii barnaamijkan maantana waxa weeye waa mid ka mid ah tallaabooyinkii loo qaaday waxa weeye in la soo yareeyo dhibaatooyinkii iyo caqabadihii ka jiray horumarinta ganacsiga Soomaaliyeed wuxuuna albaab u yahay oo noo fududeyn doona insha Allah barnaamijkaanu oo ka mid ahaana mid ka mid ah shuruudihii waxa weeye laga rabay Soomaaliya inay soo buuxiso waxa weeye nidaamka hadda ama process kabra noo socdo ku saabsan codsiga ay dawladda Soomaaliya codsatay inay xubin ka noqoto ururka ganacsiga adduunka marka in Soomaaliya ganacsigeedu uu yeesho xogaydiyahan waxay ka mid ahayd mid ka mid ah shuruudihii la rabay la buuxiyo sida uu sheegay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta maanta markii laga tago systemka oo manualka loo gudbay system oo nidaam oo system ah oo online ah runtii xogaydiyahan marka laga soo tago waxa barbar socdo mid kale waxa weeye barnaamij kale oo online ah oo waxa weeye waa insha Allah asaguna waxa weeye waa hadda si tijaabo u shaqeynaa wasaaradda already waxa weeye ay hirgeliso si tijaabo u shaqeynaa isagana waxa weeye waa daah furi doono kaasoo ah waxa weeye nidaamka waxa weeye diiwaangelinta ganacsiga qaabka online ka marka kani waxa weeye waa mid waxa weeye xogaydiyahan waxa qofka muwaadinka Soomaalida ama ganacsado wax allaale wixii xog ah oo ku saabsan waxa weeye u baahan yahay ama xitaa abuuritaanka shirkadii min bilowgeedii la dhamaadkeedii ninka ganacsadaha ama maalgashadaha dalka dibadiisa jooga raba waxa weeye inuu wax ka ogaado Soomaaliya waxyaabaha loo dhoofsan karo waxyaabaha laga soo dhoofsan karo iyo shuruucda ka jira iyo waxa weeye iyo wadooyinka loo mari karo waxa qofka hadda waxa jirta inta badan waxa dhacda oo mudooyinka ugu dambeeyta dad socdo oo ganacsato ah oo wadamada caalamka ka kala yimid inay yimaadaan waddanka gudihiisa ayagoo raadinaya marka waxa way kulamo la yeelanay ganacsatada rugta ganacsiga wasaaradii raadinaya xog waxa way Soomaaliya ganacsigeeda waxa uu yahay iyo sida marka ay ganacsi uga abuuri lahayn tani marka waxay u fududeynaysaa dadkaas markay halkan imaanayaan ay rabaan maalgashiga inay sameeyaan ganacsiga ay bilaabaan ayagoo xog buuxda haysta waxa way marka inay tallaabada qaadaan midda kale oo barnaamijkaas kale insha Allah asagana la daafuri doono ku saabsan waxa way online ka asaguna diiwaangelintu ayadana wuxuu noqon doonaa adeeg u sahla waxa way qofka muwaadinka ganacsadaha
wadanka meel walba uu ka joogo ama dalka dibadiisa ka joogo u baahan waxa way ganacsigiisa waxa way laga yaabo inuu laysankii ka dhacsan yahay oo rabo inuu badeecad soo dhoofsado ama badeecad inuu dhoofiyo waxay marka halkii waxa uu sugi lahaa maanta jimco ayaa waxay ku soo jimco waa la dhigi jiro la yiraahdo jimco way wasaaraddu waa xiranta marka qaybtii waxa way shatiyadana waa lama shaqeynaa maalinka sabtida uu sugi lahaa qofkaas waxa way daqiiqad u baahdo waxa way inuu shatigiisa inuu sameeyo asagoo goobtiisa ganacsi gurigiisa dalka dibadiisa asagoo joogo waxa inuu shahaadadiisa meesha inuu ka dalbado wixii fii'a ku waajib halka uu ka baxsado shahaadadiisa asaga gacantiisa gurigiisa meesha uu joogo waxa way uu ka daabacdo ama xitaa waxa way qoliyihii marka waxa way ganacsiga la sameeyay ama waxa way oo ka dalbado inuu u soo diro koobi kamid ah shatigiisa ganacsi isla markaa ayagana waxa way qaab oo email waxa way online isla markaa waxa ugu dirdo wuxuu noqon doonaa adeeg insha Allah sahli doona sidaan sheegay waxa way talaabooyinkii badnaa iyo marxaladii badnaa uu soo mari jiray ganacsaduhu waxa way sida uu helo shatigiisa ganacsi inay u soo fududeyso isla markaasna uu noqdo adeeg hufan waxa way oo iska oo daafuran waxa way waxyaabahan isdaba meermeerka iyo iska daba wareegay waxa way oo mararka qaar waxa dadku ay ka cawdaan iyo caqabadaha jiro waxa way in looga gudbo qofka sida asaga ugu haboon ee uu rabo waxa way inuu isticmaalo waxa way inuu nidaamka u isticmaali doono sida la xaqiijiyana waxa way shaqaalaha gacanta ku hayeen ay sheegeen waxa way nidaamka waxa way qofku wuxuu heli doonaa adeeg waxa way asagana oo waxa way qofka hadii technical ku yimaado caqabado waxa farsamo oo barnaamijki inuu heli karo telefoon waxa wasaaradda isla markiiba uu soo waco waxa way markaas waxa way haga waxa way u fududeeyay talaabooyinkii uu qaadi lahaa marka uu mari doono marka waxaan rabaa gabagabadii inaan dadkii ka soo shaqeeyay barnaamijkan ay ugu horeeyeen waxa way shaqaalaha wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan wasaaradihii kale ee xukuumadda federaalka Soomaaliya runtii oo aad gaxaway barnaamijkan ma wasaaraddu waxa way waa daadihinaysa oo kaliya laakiin waxa ka wada shaqeeyay ilaa iyo 10 wasaaradood oo wasaaradda hawlaha guud iyo dibadhiska ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda beeraha wasaaradda qorsheynta qaranka marka wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ay ka mid yihiin marka waxa way waa dhamaantooda marka waxa way wixii ka u joogo oo maanta ay u joogaan wakiiladooda ay joogaan iyo kuwa maqab waa hambalyeena waan uga mahad celinaya sidoo kale hay'adihii caalamka waxa way ayagana gacanta naga siiyay barnaamijkan inuu fulo iyo dhammaan howlwadeenada wasaaradda ganacsiga warshadaha waa u mahad celinaya iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha nagala soo qaybgalay barnaamijkan waa salaamantiin dhammaantiin waa mahadsantiin waan inoo furan yahay barnaamijku